warbixin laga sii daayay idaacadda ku hadasha afka al-shabaab ayaa looga hadlay weerar maalmo ka hor ay ka fuliyeen degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. ragga weerarka fuliyay oo ka tirsanaa al-shabaab ayaa kala ahaa Maxamed Deeq Ibraahim Aadan oo ka soo jeeda beesha Dirar kuna dhashay deegaan ka tirsan gobolka Bakool. Maxamed Deeq ayaa isaga oo wata gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ku weeraray ciidamo ku sugnaa afaafka hore ee saldhigga ciidamada Commandos-ka Soomaaliya oo dhowaan la wareegay degmada Awdheegle. Manuur Ibraahim Xasan Gaabow oo ka soo jeeda beesha Raxweyn ayaa ahaa dagaalyahankii labaad ee fuliyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday saldhigga ciidamada militariga dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Awdheegle. cutubyo ka tirsan ciidamada Commandos-ka Soomaaliya oo ay wehelinayeen saraakiil AMISOM iyo Mareykan ah ayaa dhowaan la wareegay degmada Awdheegle iyo deegaano kale oo al-shabaab ay maamulayeen muddo sanado ah kadib markii laga faramoorojiyay gacan ku hayntooda deegaanadaasi.